waa dooniyo xaalkii oo waxaynu ku dul soconaa qorshaha uu Ilaahay inoo dejiyay ma diidi kartid xanuunka kugu dhacaya mana lihid awood aad kaga celiso geerida ku habsatay qofka aad jeceshahay ogow wixii ku asiibay kuma dhaafeen wixii aan ku asiibin kugu dhaceen ee ahaw mid ku qanacsan waxa uu ku sugan yahay imtixaan kamid kuwii ugu adkaa sooyaalka insaanka ayaa la mariyay odayda ah oo sanado badan bila ubad ahaa amintii uu helay wiil misana qalbigiisa uu ku xasilay ayaa la faray inuu birta ka aslo kama labalabayn kama una dibdhicin waayo waxa uu ogaa in riyada nabiyadu ay tahay waxa uu u degdegay qaabkii uu fulin lahaa amarka alle yaanu jeclaanba sidaa darteed walaal wax kasta ka hor xitaa nafteenna aynu qalbigeena Ilaahay ku weyneyno Allah subhanahu wa ta'ala waa naxariis badane shayga uu ka qaadan waxa uu kugu bedela wax ka khayr badan sidoo kale waa deeq badane oo adoonkiisa iyo imtixaana isaga oo dhibsanaya si uu u siiyo abaal haddaba walaal u adkayso dhibka ku soo gaaray maxaa yeelay arrinkaas waxa uu kamid yahay arimaha adage sidoo kale walaal aynu ku samirno imtixaanaadka dunida si ay hoy inoogu noqoto jannada